reer Sheekh Maxamed bin Xaniif balse loo yaqaanay Yibraha oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay ka hadlay sooyaalka taariikheed iyo halka ay ka soo jeedaan. ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay suldaanka guud ee beesha reer Sheekh Maxamed bin Xaniif Suldaan Ibraahim Cabdi Xuseen waxaana hadaladiisii ka mid ahaa lagala soo qayb galay taariikhdii kana akhriyay halkan beesha reer bin Xaniifa Sheekh Maxamed bin Xaniifa ka akhriyay halkan taariikhdiisii iyo sida ahayd runtii iyo xaqiiqdu sida ahayd markaan taa ka soo gudbo dadku waxa weeye dadkani waxay ahaayeen sheekhu wuxuu ahaa ama beeshan aan ka soo jeednay loo yaqaano bin Xaniifa dadkii loogu yimiday wadanka waxa weeye dadkii loogu yimiday wadanka baanu ahayn ka bilaabay diinta islaamka ayuu sheekhu ka mid ahaa wuxuu ahaa ninkii islaamnimada soo geliyey ee wadanka loo yaqaanay maxamed Awbar Khadlaa ayuu degay halkaasoo taariikhda ka bilaabay geesta kalena waxa kulankaasi ka hadlay Sheekh Khaliil Xaaji Suleymaan Aadan waxaanu yiri qabiyadan ay Soomaalidu aan sheegayno oo bin Xaniifa la yiraahdo oo ay Soomaalidu Yibraha u bixisay waxa asaaskooda oo halkan keenay sheekh la yiraahdo Maxamed Axmed bin Xaniifa waa ogtihiin dadka Carabiga la dhaqma ama dadka Carabta la dhaqma inay garanayaan Carabtu aabahooda iyo awowgooda labaad ka saddexaad qabiiladooda ka dhigan sheekhaas oo qabiiladiisu ahayd bin Xaniifa Maxamed Axmed bin Xaniifa oo ahayd qabiiladiisu bin Xaniifa sheekhaas raximahullah ilaahay oo naxariisto wuxuu ka yimi Ardalxijaaj qabiilada bin Xaniifa kortintiisan kaga koobtay waana qofkii baalana waa helaya waxaana jira aathaarkoodii iyo dhulal dhanamka loogu magacbay mintaqada Riyaad ee deganaan jiray sheekhaas halkan wuxuu yimi aradal Soomaal oo dhanba inuu diinta islaamka ka faafiyo xeeraha Soomaaligu ka soo degay markuu xeeraha Soomaaliga ka soo degay meesha loo yaqaan Soomaalida inta kulay Somaliland way wada yaqaanaan meesha la yiraahdo Awbar Khadlaa ka soo degay gabagabadii kulankaasi waxa ka hadlay aqoon-yahan Cabdi Yuusuf Xasan oo si qoto dheer uga sheekeeyay taariikhda beesha waxaan markaa oranayaa kelmad aan dib ugu soo noqonayo oo taayadii muhiimka ahayd taariikhdan sheekhu uu ka warramay iyo suldaanku ay ka warrameen waa wax qoran wax iska yimi maaha waa wax naloo wada yaqaanay oo ay noo wada yaqaaneen bulshooyinka Soomaali qolo waliba in la yiraahdo niman reer bin Xaniifa oo canaasiyiina oo reer Awbar Khadlaa taariikhdaas waa taariikh qoran oo weligeed jirtay midka ugu muhiimsan hadda aanu runtii rabnay waxa weeye inaanu cadeyno hadallo iska daba yimi oo aanu meediyaha ka maqalay ama jaraa'idka ku aragnay oo oranaya beesha la yiraahdo reer bin Xaniifa waxay ka mid yihiin beesha la yiraahdo Gabooye waa dad sharaf leh waa qabaa'il jira oo la wada yaqaan Soomaalidu taqaano laakiin anagu beel ka mid ah ma aanu nihin beesha reer bin Xaniifana la yiraahdaa wal Soomaali oo dhan noo taqaanay Carabi noo taqaanaa cid walba dunidana looga yaqaan taas waa taa waxa aanu nimanka wadaagnaa waxa weeye inaanu nahay beelihii dulmanayaasha taasina waa mid idinkoo dhalinyaro in badan ka hadasheen nimankiina jaraa'idka iyo TV-yada inta waxa u taagantiin oo runtii in aad ka saartaan waxa ku jira mujtamacan ku dhex jira dadka dulman idinka oo afa idinka oo aaba idinka dadka magaalada Soomaaliga maanta marka taana aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin nimankaana waxa naga dhaxeeya waxa weeyaan dulmanayaal baanu nahay waa dulmanahay waa run ilaahayna waa og yahay annana ilaahay baan u sheeganaa cid kale aan u sheeganaa ma jirto salaadayada markaanu tukanno ilaahay waan dulmanahay uma naahna wax kale aan oran karaana ma jirto laakiin waxaanu nahay mujtamacan dad sharaf ku leh meel kastoo aan joogno cid kastoo ay tahay qabiil kastoo ay yihiin walaalnimo iyo sharaf ayaan kula noolnay annaastuna waa lagu yaqaanaa annaguna way ku ognahay haddii aad tihiin beelaha kale ee aanu wax ka tabanayno marka waxaan jeclaan lahaa idinkuna khayr Allah idin siiyo in asidii wanaaga wadaan ina kordhisaan Cabdi Khadar Maxamed TV-ga caalamiga ee Bulsha TV magaalada Hargeysa